madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa inuu socdaal ku tago dalka Kenya sidaas waxa wargeyska Geeska Afrika u xaqiijiyay ila xogagaala madaxweyne Biixi ayaa la filayaa inuu dabayaaqada bishan November aynu ku jirno socdaal shaqo ku tago dalka Kenya mana cadda in socdaalkaasi uu yahay martiqaad rasmi ah oo ka helay dawladda Kenya laakiin warku waxa uu sheegayaa in la filayo in madaxweyne Biixi kulan la yeesho madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaanu warku intaasi ku darayaa in socdaalkan madaxweyne Biixi ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin miisaan culus leh oo ka soo jeeda dalka Kenya haddii uu madaxweyne Biixi la kulmo madaxweynaha Kenya waxa uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee Somaliland ee ay qaabilaan madaxweynayaasha Kenya marxuum Cigaal iyo mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa waqtiga ay talada hayeen waxay kulamo la yeesheen madaxweynayaashii hore ee Kenya Daniel Arap Moi iyo Moi Kibaki qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ayaa hore u sheegay in madaxweynaha Somaliland uu socdaal ku iman doono Nairobi inta aanu sanadkani dhammaan waxaana siyaasiyiinta Kenya dawladooda ay culays ku saarayaan inay xoojiso xidhiidhka ay la leedahay Somaliland bishii September ee sanadkan waxa magaalada Hargeysa socdaal ku yimi diblomaasiyiin Kenyaan ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya u soo dirtay Hargeysa kuwaasi oo la sheegay inay indheynayeen xafiis ay Kenya ka furanayso Hargeysa